ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran ayaa maanta sheegay inay burburiyeen 3 diyaaradood oo Mareykan ah oo ku lug lahaa howlgal raadin ah oo lagu jiray mid ka mid ah xubnaha shaqaalaha diyaaradii Mareykanka ahayd ee la soo riday. Iran iyo Mareykanka waxa ay tan iyo Jimcihii tartan ugu jireen si ay u heli lahaayeen xubinta labaad ee F-15E oo ah diyaaradii la soo riday ka hor inta uusan Donald Trump maanta shaacirin in sargaalkan la helay intii lagu guda jiray howlgal samata bixineed diyaaradaha cadowga ee soo galay koonfurta magaalada Isfahan ee Iran oo ay ku jiraan 2 helikobtar oo Black Hawk ah iyo diyaaradaha xamuulka ee militariga oo C-100 Helicos ah ayaa lagu duqeeyay haddana gubanaya ayaa lagu yiri warka soo baxay saldhigga dhexe ee militariga ee Khatam al-Anbiya waxa uu intaasna ku daray in howlgalkan samata bixinta uu fashilmay. dhinaca kale warbaahinta Iran oo soo bandhigtay diyaarad laga burburiyay Mareykanka. Warbaahinta Iran ayaa shaacisay sawirro muujinaya burburka diyaarad laga burburiyay intii lagu guda jiray howlgalka samata bixineed ee duuliye ku-xigeenka diyaaradda F-15E Air Strike Eagle sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka. Intii lagu guda jiray howlgalkan 2 diyaaradood oo xamuul ah oo loo qorsheeyay inay qaadaan ciidanka gaarka iyo duuliyaha ayaa la kulmay dhibaatooyin sida uu qoray wargeyska New York Times. Ciidanka Mareykanku waxa ay burburiyeen 2 diyaaradood oo naafoobay si looga hortago ay yiraahdeen inay gacanta u galaan ciidanka Iran sida uu sheegay saldhigga cirka ee Khatam al-Anbiya Air Base. diyaaradaha cadowga ee soo galay hawada ayaa lagu duqeeyay koonfurta Isfahan oo ay ku jiraan 2 helikobtar oo nooca Black Hawk ah iyo diyaaradda xamuulka ee militariga ee C-130 Hercules ah. sargaal hore oo ciidanka Mareykanka ka tirsan haddana ah mudane ka tirsan golaha Koongareeska ayaa su'aalo adag weydiiyay xogayaha Mareykanka ee dagaalka loo yaqaan Beth Hagen oo maalintii ugu dambeysay saraakiil sarsare iyo askar ka tirsan ciidanka Mareykanka shaqada ugu saaray inaysan daacad u ahayn Trump. Seth ayaa ugu horreyntii weydiiyay imise generaal ayaa shaqada ka qaaday. Hagen tirada ma aqaan ayuu ku jawaabay. Multh Hagen waa mataqaanid tirada waa 8 maxaa shaqada ugu qaaday ayuu yiri. Hagen waxa ay ahayd cadaadis iga imaanayay iyo rabitaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku jawaabay taas oo ahayd wajigabax uu kala kulmay dadka hortooda. dadka falanqeeya arrimaha caalamka ayaa waxa ay sheegayaan in uu Mareykanka jabay sabab la xiriirta ay yiraahdeen Mareykanka waxa uu markii hore ku dagaalamayay diyaaradaha casriga ah laakiin hadda waxa uu doorbidayaa sida Iran oo kale inuu ku dagaalamo gantaalada casriga ee loo yaqaan Tomahawk waxaa dalbaday 400 oo ka mid ah Tomahawk ee Japan ayaa dalbadeen kadibna Jabaaniyiintu waxaa loo sheegay inaan laga iibin karin waqti xaadirkan sababtoo ay tahay waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu u adeegsaday Iraaniyiintu in ka badan 800 oo gantaal oo Tomahawk ah taas oo sababtay in Tomahawk ay meesha ka baxaan. Mareykankana markiisii ugu horreysay uu qorsheeyay inuu ku dagaalamo ama uu ku dagaalgalo dagaalka saddexaad ee adduunka taasna waxa ay wajigabax ku tahay ama la tijaabiyay awoodda Mareykanka taa oo micnaheedu ay tahay Mareykanka iyo Iran way isku ag dhaceen iyadoo intaas ay u sii dheertahay inay Israa'iil kaabayso oo ay xogta iyo xuraantaba intaba siinayso laakiin Iraaniyiintu weli isma yihiin dhiibin oo weli way soo taagan yihiin ay leeyihiin falanqeeyaasha caalamka.